بسم الله الرحمن الرحيم hadda waxaan soo download garaynay labadii program aynu u baahnayn hypervisorkeenii VMware-ka ahaa iyo sidoo kale operating systemkii Linux labadii baan soo download garaynay marka koobaad sidan ku soo bixi maysa adiga waayo waxaan ku soo bixinay kuwan waa machine hore aniga ay samaysnaa marka ku tusimaya sida ugu fudud ee loogu shubo control workstation-ka loo samaynayo aan idhaahdo VMware workstation-ka waayo waa kiligo naga soo dabaytana halkan oo kale ku keenaya adiga marka kuwan ku soo bixi maayaan way wali machine maynaan create garayn hadda saddex machine bay create garaysan Linux GNS3 iyo EVNG saddexduba waa saddex workstation oo hadda aniga ay shaqeynaya marka ma rabo inaan kuwaygan isticmaalo waxaan rabaa inaan machine cusub ku tuso sida loo samaynayo marka step-ka koowaad samaynayso waxa weey create new virtual machine click baan siinaya barta virtual machine cusub baan create karaynaya halkan waxa ku soo baxaya wiskigana ku soo baxaya wuxuu ku leeyahay installation-kii waxyaabaha sida loo samaynayo marka inagu hadda waxaan rabnaa image-ka halkan aynu keeni doonaa image-kiina waxa weeyaan waa operating system-kii Ubuntu ayaan isticmaali doonaa marka hadda uma yeerayo waxaan leeyahay I will install operating system later mar dambe ayaan install garaynaya next baan dooranaya operating system-kaagu muxuu noqonayaa Linux buu noqonayaa Microsoft buu noqonayaa mise others buu noqonayaa tusaale others hadaan idhaahdo kii doontid baad halka ka dhigan kartaa laakiin inaga waa Linux Ubuntu ayay weeyaan Linux marka Ubuntu ay optional dooran laakiin Linux hadaan ku soo dhufto aan idhaahdo Linux hadaan doorto Linux hadaan doorto oo Linux-ka aynu ka sheekeynayno dhawa kuwan Red Hat-kii Susugi VM maxaa loo yaqaanaa Ubuntu 64 ayaan hadda ka dhiganayaa Ubuntu 64 ayaan dooranaya Ubuntu 64 hore waa igu jiray magacyadan oo kala duwi doona hadii Ilaahay dhaafo Ubuntu 64 next ayaan leeyahay Ubuntu 64.2 igu bixi baan leeyahay marka why because of Ubuntu 64 hore igu jiray marka adiga Ubuntu 64 one kaliya ta ku soo bixi doonta deetana waxaan leeyahay next halkan weyn dalka loo baahan yahay aad ila fahantaa waan igi hore kugu sheegay computer-kaaga hard disk-giisa CPU-giisa maxaa loo yaqaanaa network interface card-kiisa ayuu hypervisor-ku qayb ka mid ah wadaagaya marka adigu wuxuu ka rabaa maximum hard disk-ga aad u allocate garaynaysid ee aad siinaysid VMware ee aad siinaysid virtual machine-ka waa imisa by default waa 20 marka waxaan leeyahay anu waan ka badinayaa 30 baan leeyahay 30 hay noqdo wuxuu ku recommend garaynayaa markaasi size-kiisu inuu 20 aanu soo kala ka yaraanin way fiican tahay yes anu 30 baan idhi waayo I have a lot of hard disks aan filayo okay marka wuxuu ka rabaa labadan option my storage virtual in the single file baad ka dhigaysaa mise multiple files ka iska dooranaya default-ka next baan leeyahay okay halkan markaan imaado wuxuu leeyahay sida ma ku sii daayay hadaan doono maya baan leeyahay kana bedelaya custom gare deetana waxaan leeyahay number 1 RAM-kaygu waa 4GB hadaan baahdo waan badinayaa 828 baan ka dhigayaa 18 laakiin adiga kugu xiran tahay computer-kaaga waa inaad taqaanid hard disk-giisa xaabis marka waxaan leeyahay anigu simply 4GB igu daa 4GB keliyata ayaan loo gud garaynay 4GB-ga by default-ka processor-iska laba processor it's okay halkan haddana muhiim ah halkan weeyaan halkan image-ka ka dejin doona inta dambe iyaga taaban maayo waayo monitor-ka haday display-ga haday tahay printer-ka haday noqoto zone card-ka haday noqoto USB preset-ka haday noqoto network interface network adapter-kaasi waxaan odhanayaa waxaan ka dhigayaa bridge sababtan uga dhigaya waxa weeyaan waxaan rabaa inuu computer-kayga internet-ka ka isticmaalo sidoo kale aan bridge karayo network interface card-kayga markastoo baxdo internet waxa kale oo odhan karaa waxa isticmaashaa NAT network address translation oo default-ka let me say default-ka hadaan u dhaaf labada option ba anytime dawaan bedeli karnaa maaha wax inagu xidhan oo sorry waa wax inagu xidhan oo markasta inuu baahno waan bedeli karnaa haddaba halka muhiimkii waa halkan waa image wali meynaan soo qaadin image-kii aynu soo download garaynay waa kan halkan aan ka soo upload garaynayna
image-keena waxaan la odhanayaa use iso image. iso image-kii baa inoo diyaarsan, halkuu inoogu diyaarsan yahay halkan hard disk wuxuu inoogu diyaarsan yahay desktop-ka. waxaan odhanayaa browse markaan idhaahdo halkeen ka soo qaadaa buu leeyahay image-ka. adiga by default downloadisku kugu jiraa, halkan iminkaan joogo waa downloadiska toos ku geynaya. haddana aniga downloadiskan ka qaaday waxaan geeyey hard diskiga, sorry waxaan geeyey desktop-kan geeyey. desktop-kii baan gelayaa new folder, halkan weeyaan, halkan u yaala. marka double click baan siinaya, sidaasuu igu soo gelayaa. kabacdi wax kasta hadda way diyaarsan yihiin. waxaan odhanayaa qaybtan close, ilan option aan kasii dhex galay baa qaybta waan close garaynayna. halkanaynu markaa imanayna. hadda ila xasuusnow, haddii aanan custom hardware iska aanan gelin oo aanan image-kii soo upload garaynin oo finish iska idhaahdo, khaladkan samaynaya waxa weye bilaa image baa soo baxaya. marka waa inaan image-kii saa soo geliyey. finish baan leeyahay marka. finish markaan idhaahdo, hadda ayuu markaasi liiskii iigu soo biiray ubuntu 64bit2 ayaa igu soo biiray. one wuu hore igu samaysnaa. marka hadda 4 mashiin baan haystaa. mashiinkaygan cusub hadda aan soo kiciyey ayaan rabaa markaasi inaan bilay gareeyo, inaan istaaro. laba meelood waan ka istaari karaa, in xagga sare ka istaaro iyo in xagga hoose aan sidoo kale ka bilay gareeyo. halkan ka bilay gareeyo marka. halkan marka ka bilay gareeyo processkii baa halka ka bilaabmaya marka. okay, saasaan u ballaadhinayaa saad ila aragtid. try to install ubuntu. halkan markaasi keyboardkii wixii noo shaqayn maayo, waxaan samaynaynaa markaasi enter keyboard. computerkaaga ayaad samaynaysaa, computerkaaga waxaad leedahay enter. okay, waxaa kaloo isticmaalaysaa use up arrow and down arrows. okay, up arrow-yadana isticmaalaysaa up iyo down-ka, gacanta entertaada iyo shiftiga iyo ka hooseeya maaragtay. page up iyo page down iyo ku kala qoran yihiin, kuwaasi ayaad isticmaalaysaa maadaama oo ay tahay inta badan uu bilowga yahay Linux-keenu. marka processkii baanu hadda bilaabaynaa. processkeenii halkan ka bilaabmaya, sidaan iskaga soconaya, isaga isu wadaya. adigu waxaad ka noqonaysaa kaliya watcher. waxaad u baahan tahay steps yar yar oo 1 2 3 oo aan badnayn, maximum 3 step unbaad qaadi doontaa. marka aan halkan sugno. marka anigu fursad umaan heli 2010 13 sano ka hor virtual machine-ka sida loo sameeyo maan aqoonin. waqti bay iga bixi jiray si aan u diyaarin lahaa. cid aqoon igu dhaantan beriga maan helinin. hadda markaa dib backdating la sameyn lahaa aad buu fiicnaan lahayd oo anigu joogi lahaa waqtigii 2010 oo kale. okay, good news. halkan markaasi waxa waliba ka baxay qaybta face-ka hore uu soo dhamaaday. qaybta ku xigta bilaabaya. markuu qaybta ku xigta ay bilaabo, wuxuu yara qaadanayaa stepskiisu qaarkood waqti yara dhaadheer oo dul qaadanaysa. waxaan kaa codsanaya in wifi ku jiro. haddaana wifi ku xiriirsanayn, faylasha qaarkood buu internetka uga baahanaya. marka waa muhiim inaad wifi aad haysatid. okay, halkan aynu nimid. markaa adigu ma taabanaysid, waa desktop-kii hore systemkeena Linux-ka cusub. waa September 27, waa maanta, waa mawlidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam. waa 27kii September, waa maalin markaasi arbaca ah. halkan ayuu yimid installation-kii. okay, wuxuu leeyahay English language-kan halkan ka dooranayaa. okay, language-kii waa kow, by default English ay ahaado. haddaba labadan mid baad kala dooranaysaa, ubuntu try mise install ayaad dooranaysaa. the most important one waxa weeyaan markaasi inaad akhridid qoraalka meesha kuugu qoran. qoraalka meesha kuugu qoran wuxuu leeyahay you can try ubuntu without making any change of your computer. adoon computerkaaga waxba ka samayn karin, try ubuntu waad odhan kartaa. directly to your cd-gaaga ayuu ku download garaysmi karaa, ayuu ku degi karaa, toos ugu degi karaa. or if you are ready, you can install ubuntu alongside instead of your current operating system. should not take too long. labadaba waad qaadan kartaa. marka let me say ubuntu try-ga ayaan qaadanayaan. ubuntu try-ga, try ubuntu ayaan qaadanaynaa. try ubuntu haddaan qaadano, next baan nidhi, sorry, click baan siiyey. okay, click haddaan siiyey. okay,
سوينا بس control not enable اوكي dhibaato ma laha sidan u soconaya markuu sidan u socdo ka bacdi waxaan rabnaa inuu processkii inoo dhamaystirmo processka dhamaystirankiisu wuxuu ku xidhan yahay steps yar oo dhowr marka aan sugno waxba ha ka warwarin shaashada sida kugu madoobaato ha ka warwarin okay finally sidan markiiba inoogu soo baxay daqiiqadiiba sidan inoogu soo baxay waa kan everything is okay installationku sidaas ayuu u fudud yahay halkan ka bilaabi doona started from now